wariyayga Mubaarak Sheekh Aadan ayuu kaasi ahaa oo warbixinta nooga soo diray magaalada Cadaado. xubno ka tirsan mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabelle iyo madaxda maamulka degmada Jowhar ayaa kormeer ku tagay xaaladda cisbitaalka Intersos ee magaalada iyagoo u kurgalayay sida uu cisbitaalka u shaqeeyo iyo xaaladda caafimaadka bukaanada ku jira cisbitaalkaasi. Ana sidoo kale xubnaha mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka iyo maamulka ay booqasho ku tageen xarun loogu talagalay in lagu karantiilo dadka uu soo ridanayo cudurka coronavirus ee gudaha deegaanada Hirshabelle gaar ahaan magaalada Jowhar. wariyahayaga Ibraahim Cali Nuur oo booqashadaasi qayb ka ahaa ayaa warbixintan goordhow nooga soo diray magaalada Jowhar. kormeerkan wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabelle maanta ay ka sameeyeen 4 xaafadood ay ka kooban tahay degmada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ayaa ah mid ugu kurgalayeen halka ay marayaan ololaha wacyigelinta ka hortagga COVID-19 waxaana sidoo kale mas'uuliyiintan ay kormeer ku tageen isbitaalada ku yaala magaalada Jowhar sida isbitaalka Intersos oo ay jiifaan bukaanada qaba xanuuno kala duwan waxayna gaarsiiyeen lacag shilin Soomaali ah sidoo kale isbitaalka hooyada dhalaanka ee IMC oo ay ku jiraan ama ay jiifaan hooyooyin ku umul isbitaalka ay booqdeen mas'uuliyiinta sidoo kale lacagaha ay gaarsiiyeen wasaaradda caafimaadka kormeerka waxa ku wehelinayay maamulka degmada Jowhar sidoo kale mas'uuliyiintan ayaa waxay tageen halka loo diyaariyay in lagu karantiilo ama lagu baxnaaniyo dadka uu soo rito cudurka coronavirus. markuu kormeerka soo dhamaaday waxa ugu horeen warbaahinta la hadlay duqa magaalada Jowhar Saalax Mude Cali iyo gudoomiyaha degmada Jowhar Ismaan Maxamed Mukhtaar Bari. maanta oo ay bishu tahay 26 May ayaa waxaan wasaaradda caafimaadka iyo gudoomiyaha degmada iyo anigaba soo kormeernay magaalada gudaheeda iyo isbitaalada Intersos iyo IMC taasoo aan u kurgalnay habka ay u socoto wacyigelinta iyo dhibaatooyinka jira marka si aan u ogaano waxa jira. waxaan leeyahay aad u maasantiin runaantii waxaan qiraa wasaaradda caafimaadka ee Hirshabelle in kaalin weyn oo mug leh ee wasaarad inta loogu baahnay ay qabatay aan qiraa haduu la yiraahdo xayeli maanta inta aan soo wareegaynay 5 saac ilaa hadda meelaha aan tagnay iyo maxaan ku dhawaacay gelinta laga haayo magaalada waxaan u qirayaa in ay yihiin state-yada kuwa ugu horeeyay yihiin qiraa lacagaha aan qaybinin waxa ay ka timid wasaaradda caafimaadka ee Hirshabelle taasoo ay ugu talagaleen kuwa ugu liito xanuunsan. dhinaca kale wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdi Macalin Maxamuud ayaa ugu baaqay bulshada reer Jowhar in ay qaataan wacyigelinta wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabelle. arrinta tan waxa suurto gashay wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda warfaafinta oo iskaashanaya iyo awqaaftana waa dadaalkii ay macnaha ay lagu bilaabay ilaa hadda lagu socdaan. waxaan rabnaa anagoo ka faa'iideysanayna munaasabadatan dhammaanba dadka reer Hirshabelle inay taxadiraan arrintaana ay u qaataan mid sax ah oo run ah in la dhimanayo awal dhimanayo laakiin arrintan inay tahay caawq safmar ah inuu yahay oo diintuna ay sheegayso. kormeerkan mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Hirshabelle iyo maamulka degmada Jowhar ayaa wuxuu imaanayaa xilli magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle iyo magaalooyinka kale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ay ka socdaan ololaha wacyigelinta ka hortagga coronavirus. Ibraahim Cali Nuur TV Universal